السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد وناكسن، الله ينقى أقبله أعماشي وناكسني أي نسوس بينيني بشهر رمضان. بشهر رمضان خير كبرنيد أياد ماتي، waxaynu samaynay khayr badan, waxaynu akhrinay qur'aan, waxaynu u kacnay salaatu tahajjud, waxaynu tukanay salaatu taraawiix. khayr badan ayaynu samaynay, waxay ahayd bil aad u khayr badan oo aad u barako badan. allana subxaanahu wa tacaala acmaashii wanaagsanayd ee aynu samaynay allah inaga aqbalo. haddaba maxaa inoo qorshaysan ramadaan markii ay dhammaatay kadib? acmaashii wanaagsanayd iyo khayrkii aadka u macaanaa ma waxaynu ku jari doonnaa halkiisii oo waa aynu ka socon doonnaa oo halkii aynu markii hore joognay ayaynu ku noqon doonnaa, mise khayrkii wanaagsanaa ee ay naftu ku raaxaysanaysay ee ay wanaagga iyo nuurka ay ku dareentay ayaynu sii wadi doonnaa? maxaa inoo qorshaysan bisha ramadaan markay dhammaatay kadib? waxaa laga yaabaa adigoon sanadkaa qur-aan kala furin oo aan qur-aankii ilaahay akhrin inaad bishaasi akhriday oo aad kitaabka ilaahay aada akhriday. haddii aad xaafid ahayd intii aad akhrin jirtay, waxaa suuragala inaad ka sii kordhisay oo aad qur-aan fara badan akhrin jirtay. haddaba qur-aankii aynu akhrinaynay bisha ramadaan ma halkii ayaynu ku joojinaynaa mise waa aynu sii wadaynaa? hal xadiis ayaynu soo qaadan doonaa oo runtii ka hadlaya qiimaha uu leeyahay qur-aanka barashadiisu, iyo in waxa adduunyada yaallo oo dhan uu ka khayr badan yahay in aad qur-aanka barato. haddii aanad qur-aanka baran oo bishii ramadaan ay caqabad kugu noqotay inaad qur-aanka akhrido oo suuradaha hoose unaad akhrinaysay, ma ku tala jirtaa inaad barato oo bisha ramadaan hadduu ilaahay bisha ramadaan ee dambe ku gaadhsiiyo aad gaadho adigoo qur-aanka meel fiican ka gaadhay? bal haddaba qur-aanka barashadiisa qiimaha uu leeyahay iyo adduunyadan dhalaalkeeda iyo waxa ka socda oo dhan inuu ka khayr badan yahay, hal xadiis oo ka warramaya ayaynu soo qaadan doonaa insha allahu tacaala. haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan sabscribe-ta noo saa sheergaleen si uu khayrkaasi u gaadho walaalo fara badan oo laga yaabo xadiidkaasi inuu sabab ugu noqdo in ay qur'aanka xifdigiisa iyo barashadiisaba ay bilaabaan. xadiidkan waxaa warinaya cuqbata binu caamirin radia allahu canhu, waxaana soo saaray muslim. cuqbata bnu caamir radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابي عقبة بن عامر أيا وحو يري rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nagu soo baxay annagoo ku sugan meesha sufa la yidhaahdo. booskaasina waa boos ku yaallay masaajidka nebiga xaggiisa dambe oo dadnaa, waxaana deganaa foqoradii muhaajiriinta ee muslimiinta, kuwaasi oo maal iyo xoolo waxay lahaayeen oo dhan ka soo hijrooday oo ilaahay dartii uga yimid. halkaasi ayaa ay deganaayeen oo ay ku noolaayeen oo hoy u ahayd. saxaabadaasi ayuu rasuulku ku soo baxay. waxaa laga yaabaa midkood inaanu haysan hoos kunti mooyaane wax kale,
waxa duunyo ah iyo xoolo iyo maal iyo waxay kala rogrogaan midna ma haystaan halkaasi ayay ku nool yihiin oo ay degan yihiin waxay ahaayeen martidii islaamka tiradoodu mar waa ay badan jirtay mar waa ay yaraan jirtay abu nucaym kitaabkiisa xilliga wuxuu gaadhsiinayaa 100 in ka badan sidoo kale inay 200 gaadheen ayay culimadu gaadhsiiyaan mar waa ay badan jireen marna waa ay yaraan jireen waxay raaci jireen jihaadka iyo sariyaadka uu rasuulku dirayo waxaa kaloo uu rasuulku u diri jiray tuulooyinka soo islaama in ay qur'aanka soo baraan waayo waxaa ku jiray xufaad saxaabo qur'aanka xifdisan waxa uu rasuulku ku boorinayaa qur'aanka barashadiisa iyo qiimaha uu leeyahay kadibna waxa uu ku yidhi kiine ayaa jecel inuu u kallaho meesha la yidhaahdo budxaan ama meesha la yidhaahdo caqiiq labadan boos ee budxaan iyo caqiiq waa laba meelood oo la sheego inay ahaayeen suuq lagu iibiyo geela wuxuu rasuulku ku yidhi midkiine ayaa jecel inuu ku kallaho meesha la yidhaahdo budxaan ama caqiiq kadibna uu kala yimaado 2 halaad oo kurus waaweyn isagoo aan dembina samaynin qaraabana aan goynin oo aan soo xoogin ama qish iyo xaaraan aan ku soo qaadan iyo been ama aan qaraabo goynin oo aan dad ka soo xoogin kiine baa jecel 2 halaad subaxii buu ku kala hayaa labada meelood mid ka mid ah kadibna wuxuu soo kaxaysanayaa oo la soo noqonaya faa'iido ah 2 halaad oo weliba kurus waaweyn waqtigaasi carabta xoolahooda ugu qiimaha badan waxay ahaayeen geela weliba geelaasi marka uu kurus waaweyn yahayna waa uu ka sii qiimo badnaa geela kale hashu iyada ayaa ka sii qiimo badan awrka waayo iyadu waa ay tarmaysaa waana la lisaya oo caano ayaa laga lisaya 2 halaad oo kurus waaweyn midkiine ayaa jecel inuu soo qaato isagoo aan dambaabin oo nadiif waxay yiraahdeen yaa rasuul allah nuhibbu dhalika rasuulki ilaahiyow waanu jecelnahay arrinkaas waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi hadal uu macnihiisu yahay midkiin miyuu ku kallaho masaajidka uu masaajidka tago kadibna uu barto ama uu soo akhriyo 2 aayadood oo kitaabka ilaahay ka mid ah waxay uga khayr badan yihiin 2 halaad 2 halaad ee kurska waaweyn ee aanad dembi iyo qish aanad ku soo qaadanin waxaa kaaga khayr badan inaad masaajidka ku kalahdo oo aad soo barato 2 aayadood ama aad soo akhrido 2 aayadood oo kitaabka ilaahay ka mid ah barashadii waxaa soo gelaya inaad barato akhriskii aayadda sidoo kale inaad aayaddii xifdido iyo inaad macnaheeda iyo tafsiirka barato saddexdaasiba waa ay soo gelayeen inaad akhrido oo aad barato waxay kaaga khayr badan yihiin 2 halaad ee kuruska waaweyn sidoo kale 3 aayadoodna waxay ka khayr badan yihiin 3 halaad 4 waxay ka khayr badan yihiin 4 halaad sidoo kale tiradooda haddii la farabadiyo 100kiina waxay ka khayr badan yihiin 100 marka quraanka barashadiisa xifdigiisa iyo akhrintiisuba qiimahaasi ayaa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada fuqarada ah ee masaakiinta ah ee halka deganaa ee aan adduunyo waxba ka haysanin waxa uu ku boorinayaa oo uu ku tirtirsiinayaa in ay bartaan quraanka oo ay xifdiyaan marka bishii Ramadaan haddii aynu quraanka akhrinaynay oo aynu ka faa'iideysanaynay inaynu sidii u sii wadno khayrka oo aynu qorshe dejinno aynu quraanka ku baranayna haddaynan aqoonin haddii aynu naqaanana aynu ku akhrinayno oo aynu kaga faa'iideysanayno insha allahu tacaala allana hayna waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu